عبد الحلسي وانين صوماليا وانين كسو jeeda gobolada Puntland waxaan dhashay 1963 waxaan ku dhashay baadiye anigoo 8 jir ah ayaa la iga kaxeeyay 7 meelahan oo jira baa la iga kaxeeyay waxa ay kaxeeyay oo halka ay kaxeeyay gabar walaashay quraanka jawhar baan ka bilaabay ka bacdi waxaan u bedeshay oo la iga bedelay halka college la foole la yiraahdo markaan dugsiga dhexe ka baxay waxaan shaqo la iga geeyay wasaaradda warshadaha ka bacdina waxa shaqo khaas la iga geeyay warshada dharka balcad xafiiska arkiibiyada warshadaas waxay sameyn jirtay oo ka soo bixi jiray dharka Soomaaliya ama ciidamaha aadeen asluub ha aadeen military ha aadeen maxaan ku sheegaa boolis ha aadeen maxaan ku sheegaa ardadii Soomaaliyeed oo dharkoodii uniformkoodii ilaa iyo kan hoose ilaa iyo kan jaamiciga ah warshadaas soo saari jirtay joodiyadii funaanadihii waxaasoo dhan warshada baa soo saari jirtay oo u soo saari jirtay Soomaaliya ma dalban jirin dhar military oo banaanka looga keeno ma dalban jirin dhar arday oo Soomaaliya dibadda looga keeno gobolada la geyn jiray joodariyaal lama keeni jirin warshadaas soo saari jirtay markii aniga wasaaradda warshadaha la geeyay shaqada kaliya kumaana kaane wasaaraddu waxay ogolaatay secondaryga inaan sii wato anigoo shaqaynaya ayaa waxaan dhigan jiray galabtiina waxaan iskuulka dhigan jiray General Daoud secondaryga xamarna waan deganaa waan soo shaqo tagi jiray warshada dadka u shaqeeya oo xafisada ka shaqeeya waxay badanaa deganaayeen xamar bay deganaayeen xamar marka baabuurka baska oo dadka keena ayaan kursi ku lahaa subaxina iskuulkayga aadi jiray galabtiina waxaan soo aadi jiray warshada xafiiskayga wixii shaqo oo ku harsanaa oo marka aan dhameystirnayn ayaan markaa dhameystiri jiray waxa weeye maalin maalmaha ka mid ah nin nooca boostaale oo warshada boostaalo ah boostada iyadoo sajala wasaaradda warshadaha laga keenaa xafiiska arkiibiyada la keenaa xafiiska arkiibiyada haddii subax ay tabaadnada shaqaalaha markaa jooga ayaa waraaqda furay oo ka jeegaray waraaqdaas inay sajalkeedu ku tibi iyo in wax laga furay haddii ay imaan weydo subaxina galabtii bay timaadaa qofka xafiiska jooga ayaa boostaalaha waraaqdaas inay sajal tahay ka jeegareeya waraaq baa laga saxiixaa waraaqda sajal weeye markaas laga la wareega sababta sir baa ku qoran waraaqda ay wasaaraddu leedahay ay warshadu leedahay galabtii dambe anigoo xafiiskii jooga waa boostaale wuxuu ii keenay waraaqdii waxaa ku qoran 13 nin oo warshada ka shaqeeya oo high officers agaasimayaal injineero farsamo yaqaan oo kulli dadkii mawlka u ahaa warshada wax soo saarkeeda haddana anigu markaa nin iska dhalinyar baan ahay dadkaas markii aan fiiriyay xoogaa kacaankii dadbu markaas gacanta si gaar uga hayay ragga meesha ku qoran oo ah 13 nin 2 nin ma inta kale waxa niman isku jiliba oo ma jeerteena waliba maxamuud salaamaana 2 nin baa weeliyay 2 nin Allahu naxariiso 2 nin waa dhinteen nina warsangeli buu ahaa nina dhul bahantu ahaa jaamac siyaad buu ahaa waraaqdi markii aan arkay aniga moogtay anoo yar oo haddee aan siyaasad ku jirin inaan waraaqdii fashilo oo dadkii intaan baabuur fakis waagana qaato iraado hebel waad uga xirantahay anoo kiiska la igu qaadayo arintaas baan nimankii fashil ku sameeyay oo sheegay nimankii ilaa 4 nin baa fakatay oo xogtii anigu aan bixiyo ku fakatay dabadeed 9kii kale waa la qabtay 13 nin nimankaas markii la qabtay qayb waa la dilay oo waxa lagu dilay ay ku dhinteen xamar baa la geeyay badda iyadoo lagu ridaayo baa 2 nin ku dhimatay qaadilka laga daadiyay aniga xafiiskii aan ka shaqeynayay subaxii dambe ninkii maamulaha ee ahaa wuxuu yiri waraaqatan waxa fashilay oo dadka u sheegay qarja baa u sheegay dabadeed ninkii maareeyaha markaa warshada ka ah Cabdulqaadir Sheekh Maxamuud Liiraan nin aad u fiican runtii khayr Allah siiyo oo qabiilkiisuna markaa waa mareexaan baa la ii keenay aniguna xafiiskayguna hoos yimaado wuxuu yiri waa lagu dacweeyay sirtii dawladda fashishay
isku baalkan xafiiskan biloodoo tababaro khaasa u qaatay kiiska qofku kiisasku fashilo hadba ilaa toogasha ku jira ilaa 20 sano ku jira ilaa 10 sano ku jira hadba kiisku intuu leeyahay sababta arkiibiyada ilaa qofka wax la taabsiyo lagu qabto in la fashilo ma dad ka shaqay aniga runtii waa la baray marka kiiskaas lagu haystaa waa kaftanayo ninkii dacweynayo marka laga soo wareejiyay ciidamada CID-da oo gaashaan la abaanaga xukuumad xafiiska iyo xukuumay ninkii bay dacweynayo ilaa ninka baalkii fashilay maareeyay oo yeeray waa lagu dacweeyay oo yiri kiiskan aan lagu haystaa dadkii qaybna waa fakatay qaybna waa la qabtay kiis sharcigu wuxuu qabaa kiibaa la maamulaha ayaa wuxuu leeyahay kiisku wuxuu qabaa haddii sirtu ninkan uu bixiyay dadkii fakaday isaga lagu qaaday dambigiis halka markii arrintu mareysay baa maareeyay dhalinyaranimadu marna waa wax faa'iido marna waa wax khasaaro kiiskii la igu haystay oo maareeyaha iyo maamulahaygii ay iga wareysanayeen baan si involuntary baan u dhexgalay markaas waxaan ku yiri maareeyay anu kiiska ma fashilin laakiin dadka xafiiska igala shaqeeyay ilaa 6 qof baan iyo maamulaha aniga maxaa kiiska kaliya la saaray inta kale miyaa isku reera halka miyaa isku reera kiiskii aniga baa isku cadeeyay markaas uu ninkii CID baa booliis wuxuu yiri maareey ma maqlaysaa ninkii waa ka kiiskii hadda loo haystay سوي اسكو عدي قبيل كهذا ماري وحي بناك هذا ابو بحوير ارض كي مامولها نوعها عدي وحيري مو هذا قرن كيس كل واحد انه قبيلتها waxaad ku hadashay Soomaaliya qabyaaladihiin markaas aan ma maarey hada rubaan ku sheegay waxaan arkay in anigii maartay si gaar ah lay target reynaya waan arkay waan ku yiri markaas intuu qoslay wuxuu yiri kiiska waa ku jidhaa laakiin mid baan sameynaya kiiska ku jidhid inaad nimankaas sirtaadu fashay waa cadahay afkaagan ka haya laakiin mid baan sameynaya xafiiskan ka bedelaya iskuulkaagana maadaama secondary dhigatay si wado warshadana iska soo xaadiri laakiin xafiiska shaqadiisa ka joojinaya laakiin kiiskiina lagu qaadin maadaama nin dhalinyaro oo yar ah tahay mustaqbalka inaan lagu xayaarin baan ka shaqeynaya ninkaas asxaankaas uu sameeyay sidaasaan anigu iskuulka ku sii watay warshada xafiiski waa laga bedelay shaqada dulsaar baan ku ahaa ragii aan sheegayna tii xabsi baa loo wada diray labada nin oo dhintay maahe marka sidaas baa aniga igu kaliftay anigoo markaas 18 jira inaan jabada SDF inaan aado sababta waxay ahayd iska cad oo dad la ugaarsanayo oo cadaalad darro ku jiro qisada waxa kamid ah nimanka 4 oo la qabanayay waxa ku jira laba nin oo arday ku soo ina dhul baanta ah ina warsan galay laba nin oo injineer ah kulligood niman injineer iyo xisaabiyaasha iyo agaasimayaasha bay ahayd markaas ninkaas waxa la qowla la oran jiray wuxuu yiri in aad ma ogtahay u furfuran baa nimankan dadkana saaxiib la markaas wuxuu ku yiri nimankii nabad sugida markii la qabanayay meel lagu soo ururiyay wuxuu yiri waagid ragii dhintay ku jiray labadii nin oo la diray ninka bukaa wuxuu yiri war hadii reer la urursanayo aniga iyo hebel reeraha kamid maahan miyaad nagu qaldanteen hadii reer la ururinayo anagu ma jeerteen maahan miyaad nagu qaldanteen biyo qolay markaas أنا مريش بتشوفين إن مريش وحوي حلوين ورا مس باستر وباستر كودال كما عقب سوق السدية يا وحلا عنتها والله متها والله فكرتها ورت أنا وسيدان أنكو عادي شباب SDF أنا وأنكو عادي وحسيدا ودعية ومذهب كلا صوحة ودد خاص الله وقار سنة سيداكو بحد المرة أنا لحنين وكلا وشدة وشقية ولحدا نن ninkii injineerka ah oo jaamac siyaad walaalkii yahay xasamaama waagida maanu bixina markaan Itoobiya tagnay oo jaamac siyaada iyo shantayada kale oo ma jeerteena oo laba nin oo macallimiin iskuulaha iyo intayada kale oo saddexda kale oo ka shaqeynaysa warshada waxaanu ka tagnay balcad baan ka tagnay basas baan ka raacnay basasta waa la jeegareyn jiray dhulka ma naqaan kuma lugayn dad yaqaan ma ahayn halkaas aan ka tagnay gaalka ayaan tagnay anoo basaskii la kala socona balcad hadaan gaalka ay tagnay laba u tagnay halkaas aan misna iska helnay halkaas aan misna ka raacnay baabuur siiso waxaanu tagnay meel la yiraahdo dameer joog oo jabhadii ay degan tahay jabhadii hadii aan magaalada qolana
qolyahan ila aan la socday oo reer ciideeda raggaas ahaa aan la socday qaybtood baa dadka ciida deganaa oo niman reer khalaaf iyo u badnaa raggaan la socday ahaa meeshii haddii aanu tagnay dowladii dameerjoogo jabad reer maxamuud leeyahay joogto baanu tagnay jabhaddii way naga war heshay inaan joogno qabta nimankaa baa layidhi ila niman magaalada aan tuulo yar weeye oo niman magaalo ka yimi oo dhallinyaro ah oo intaa leega wada socda dadku inuu socdo waa la ogaa sidaa hadday noqotay waxaa la yidhi nimankii baa odayaashii qaybtooda tagay waxaa layidhi war nimana kana qabanine idinkana iyayan idin ceebayn laakiin si hoosaan u saaraynaaye caawa jaanis siiya ninkii markaa jabadda haystay odayaasha hadday la hadleen jaanis bayna siiyeen maalintii maalin baan nimi habeenkii baan joognay habeenkii labaad baan meesha ka baxaynay cuntadii iyo dhaabowgii naloo dubay iyo wixii saada aan qaadan lahayn markii la saarayay galabtii annagu fiidkii baan baxaynaaye waxaa lagu saaray wadaan baraagaha lagaga cabo waa rootii dhaabowgii naloo dubay baadiyaha noola ku saaray iyo hilib iyo waxaas aan jidka ku mari lahay dameerjoog baan ka lugaynay dhulkaa dee qofkii yaqaan baa yaqaane waa dhul aad u kala fog wax marka nin baana wada dalaqoonoo ah baana wada oo nin reer khalaf aana wada ninkaasaa 9 lug ah waa soconnay waa diyownay dhulkii baan garan weynay waqtigii baan ugu dheeraaday saadkii baa naga dhammaaday waa soo laabanay ciidamada Soomaaliya ilaa iyo waxay degan yihiin galaadiya haysta maxaan ku sheegaa meesha ugu shaysa oo ciidanka Soomaaliya uu baalkii xuduudda iyaga jooga walwaal iyo wardheer ma inta ka sukaysa iyaga jooga laakiin meeshan la walwaal iyo wardheer baa markaa jabadu joogtahay haddii aanu dayownay oo silixnay oo dhibaato noqobsatay oo saadkii naga dhammaado aan soo noqnoqnay waxaan ku soo noqonay tuulooyinka qaybtood baan ku soo noqonay misna halkaasaa dib uga urursanay halkaasaanu ka tagnay oo waxaan markaa u ambabaxnay waa la nastaa qaloocan meel la yiraahdo agagaarkeeda lagu nastaa habeenkaas haddii aadan xuduudda dhinaca u dhicin oo aadan nasasho ku marin ciidamada dawladda ayaa dhulka ka ugaarsada oo raadka raaca oo ku soo qabanay marka habeenka waxaad samaynaysaa inaad socod dheer samaysid inta u nasatid saadkaada waxaa nagu dhacay marka habeenkii sii soconayna waa garanayaa dee awal rag intay daaleen oo soconayo dee magaalo ka yimaanay inaanu gaarno qofku markuu daalo geedka xananka ma maqashay xananka geedka xananka baa isku tuuraysaa si xanuunkiisa maaragtay jirka kaaga qabsado dhig kaaga yimaado waad xoogaa ugu socotid xanuunkii kale daalka kale kaaga baxo halkaasaan habeenkaa la isuma istaago qofkii haraa waa siduu u haray qofka u joojin maysid yaa layna wada qaban weeye xaaladdu waa inaad dhinac hareerida u dhacdid walwaal haddaadan gelin raadkaa la helayaa baabuurtaasaa ku soo qabanaysa dad badan baa halkaa lagu qabtay halkaasaan horta jabaddii annagoo tabcaana markaan xuduuddii hareeriga galnay walwaal baanu socon kari weynay fariin baan geysanay halkaasaa baabuur waxaa naloo ku keenay baabuurta jeemiska oo Itoobiyaanka iyo qoladii jabhadda markaa walwaal joogay xilligaas waa 80 waxa weeye 80 weeye marka walwaal waxaan tagnay xilli abaara walwaal markii la geeyay xilli abaara ciidamadii jabhadda jooga dhowr operation oo yar yar bay sameeyeen qarkaa loo saaran yahay in dib meesha looga qabsadaa la rabaa tababar fiican bay lahaayeen Itoobiya baa la deganaa laakiin ciidamada ilaa wadada dheer ilaa iyo dhulka degan oo gaasaska iyo guutooyinka iyo ururada ah ma ahayn laakiin dad mintida oo la tababaray oo qofku survival ku jiro nolol adag ku jiro bay ahayd qabta markaa madax waxa ka ahaa oo joogay caraysni la yiraahdo iyo ragaas oo dhan baa joogay waxa joogay saraakiisha oo dhan baa markaa joogtay rag badan baa joogay gardeeraa joogay rag badan baa joogay markaa laakiin ciidanku walwaal wardheer baa madaxda talisku joogay laakiin halka ciidanka joogay oo markaa ururka halka joogay indha yara haystay halkaas markii aan tagnay annaga ragayga iyo rag kale oo meesha ugu tagnay diyaarad baa halkaan ka saaray diyaaradda raggii la saarayay meesha isugu waa lagu ururin jiray markii la ururiyo dadka matalan iskuulada ka soo baxay iskuularka ah oo maartay dhalinyarada ah dadka kale meesha lagu tababari jiray
ودتك ميجي كيمي وحاسي meesha lagu tabay bari jiray laakiin dadka iskuularka ay ama xafiiska ka soo shaqeeyay waa la qaadi jiray si maartay aqoontana loogu soo kordhiyo hogaamiyaha looga soo sameeyo aniga halka ragay aan ku jiro halkaas diyaarada la kaga qaad waxaana la geeyay meel yaaran gooto markaana la geenayo niman commandos oo ilaa iyo 100 nin oo commandos baa tababar kaga jira markaa niman Itoobiyan ku tababara ilaa iyo anagana ilaa iyo waxaan gaarnay ragii markaa diyaaradaha lagu qaaday ilaa 6 tababarkii guud baan marnay oo commandoosnimada ahayd baan la wada geliyay ka bacdi markii tababarkii noo dhamaaday oo tababarkii ciidanka si fiican u baranay baa misna la kala qaybay aniga waxaan waagaa markii qaybtii isgaarsiinta waxbarashada isgaarsiinta inaan dib u bilaabo taararkii communicationkii ayaa halkaa ka galay goortaas oo aanu qaybtii ku aaday inaan barto isgaarsiinta baanaha waagi dambe aan ku shaqeeyo dhageysiga iyo maartay sifarada iyo waxaas ayaa waagi dambe shaqo professional ahayd waan shaqada ka galay sababta waa qarax caburin ba qaraxdaas ka dhacay miina hadii meel la geliyo oo fayuus lagu xiro oo loo diyaariyo inay qaraxdo miinadu laba wax bay ku qaraxdaa meel loo jeedo laga qarxiyo iyo barashar fuula horta Soomaaliya meel loo jeedo laga qarxina barashar fuulay bay la qarxdo miinaduna way firidhaa saas ay u firdaysaa Soomaaliya horta saas ay u firidhay waxa lambar 1 oo ana kaligiis talisnimo iyo jacayl aniga hal ay jeclaada qofna hal nabcaada baa horta Soomaaliya u burburay sababta waxaad garanaysaa Maxamed Siyaad Barre haddaan in yar ugu laabto dadkii wax la wadaagay oo wax la inqilaabay bitaal yar ka soo qaad dadkii wax la wadaagay wax la inqilaabay buu ugu hormariyay inuu laayo waa dadkii wax la inqilaabay oo ugu dhawaa buu laayay koo ma istaagina wuxuu xirxiray oo qariyay wixii wax ogaa buu ku xijiyagana awday labo ma istaagine xaqii diinta islaamka culimadii buu yadana aad ogeydeen oo baalkiyagana u laayay marka maxaa haray marka dadkii hadii wixii la garanayeen laga xiro wixii wax kula wadayna aadan rabin in adiga kaliya joogtid arabtid oo aad dishid dhinacii diinta islaamkana wixii ku dhawaaqa aad dishid yadana aad leesid maxaa haray marka qaraxaasuun baa haray wixii ka dhaxayna waa ogey hadii la soo laabtay oo inta aan ka soo gudbo oo problemka Soomaaliya problem caam ah mada Soomaaliyeed caam ah waxaan hadda arkaa dad yiraahdo khayrka waagaas dawladda naga barbadhay khayr noogama dameyn dad yiraahdo baan hadda arkaa waxaan arkaa kuwa hadeer laftigooda wali kaliya taliya saaso iyo wax la mid ah marka qaarkood waxa ay soo baxda iyo ma dadkii baan wax ka noolayn mise fakarkii oo intii hadeer marada laga soo rogay baa ranti la maraya cusub dadkii loo qoraya qof jacaylkii qof hadalkii